subax kasta waxaa iskuulka lagu geeyaa loogana keenaa mooto bajaaj. qiyaas imise qarash ah ayaa ku bixi karta bishii. carruurta iskuulka la dhigta ayaa ku dhaleeceeya qadarta Ilaahay, laakiin hankeeda ayaa ka weyn waxa dhagaheedu ay maqlaan. Xaliima Sacdiya Saciid Cabdilaahi waa gabar Soomaaliyeed oo 14 jir ah. 13 sano oo nolosheeda ka mid ah waa naafo. iyadoo 1 sano jirta ayay ka soo dhacday gidaar ama derbi, waxna ay wax ka noqotay neerfaha lugteeda bidix. intaa waxaa u raacay in maalinba sanadba iyo bilba bisha ka dambaysa ay sii dareemaysay xanuun, dhimirkeedana uu saameyn ku sii yeelanayay. mararka qaarna markay wax akhrinayso ay dareento madax xanuun, indhaheedana aad ka dareemayso in jug maskaxda ay jirto. gabadhii lugtii waa iska noqotay naafo. markii naafo iska noqotay oo hadda gabadhu waxay jirtaa 14 sano ayay jirtaa. ilaa xilligaas marka lugtu naafo iska heed hadba heeray soo maraysay, hadba waxbaan aan ku qaban karnaa ku qabanaynay. aakhir markii aan isbitaallo badan geynay oo isbitaallo badan aan la marnay, waxay dhaqaatiirtii nagu yiraahdeen gabadhan dalka gudihiisa waxba loogama qaban karo. qoyskeeda uu ku dadaalay ayaa u suura geliyay in la geeyo inta badan isbitaallada Muqdisho, waxaana loo sheegay inay u baahan tahay baxnaano iyo caafimaad waddanka horumarsan heerka caafimaad ee dalkeena hooyo. haddii cudurkan hadda haya gabadhan aan hadda laga gaarin oo aan daawo iyo loo raadin, haddii la ku leeyahay dhaqaatiir fiicanna, cudurkaas inuu sii faafi doono oo jirkeeda inteeda kale iyo lafaheeda uu ku sii faafi doono, xanuunka hadda maskaxda ka hayaana uu ku sii ballaaran doono ay noo sheegeen dhaqaatiirtu. waxaa aad ii dareen geliyay oo runtii aad ii soo jiitay Aabe Saciid oo nolosha reerka maareeya iyo hooyada gabadhan dhashay oo labaduba ku dadaalay in gabadhooda aysan ka harin waxbarashada. iskoolka way dhigataa, iskoolkii hadda aaditaankii dhib ayuu ku noqday. waa qof naafa, iskoolka way aadi weysay. hadda 2 beri iskool ma aysan aadin. marka qiyaas imise gabdhood oo Soomaaliyeed oo waalidkood ay waxbarashada awoodaan ayaa laga doorbidaa in guryaha lagu hayo, laakiin qarashka waxbarashada ka sokow iyo qoyska oo danyar ah, waxaa qoyskani ku dhiiradeen in gabadhooda ay waxbaraan, bajaajtan ay dabaraan. Xaliima Sacdiya hadda waxay dhigataa dugsiga sare fasalka 1, waxaana waalidkeed tan iyo yaraanteedii kula dadaalay inay waxbarato. iskoolka way dhigataa, iskoolkii hadda aaditaankii dhib ayuu ku noqday. waa qof naafa, iskoolka way aadi weysay. hadda 2 beri iskool ma aysan aadin. marka walaalayaal, sababta keentay in hooyo iyo aabe ku dadaalay waxbarashada gabadhooda idinka codsadaan inaad la daweysaan wax kale maahan ee danta ayaa u awoodi weysay inay daweeyaan gabadhooda. haddii annagu aanan marka waxaan maanta ku daaweyno ama aan dalka dibadiisa ku geyno ama wax uu qaban aanan hayn, awoodna aanan u lahayn, sida Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu ogyahay, waxaan go'aansanay annaga inaan ummadda islaamka ee Ilaahay wax siiyey ee wax haysata ee wax tari ee ummadda islaamka inay wax taraan inaan u bandhigno oo annagu aanan qarsan. sidaas ayaan go'aansanay, sidaas ayaan u soo bandhignay. iskuulka ay dhigato Xaliima oo aan booqday waxaa aad ii soo jiitay heerka waxbarashadeeda oo runtii maamulka iyo macallimiinta ii sheegeen inay ka mid tahay ardada ugu dadaalka badan. sidaas aawadeed marka waxaa maanta inoo suurto gashay in aan fursad u helno oo aan kaga warbixino ardaydaas xanuunka haya, ahna arday dadaalaysa. hase yeeshee bini'aadanku xanuunkiisa ma dhammaado oo in la iskula garab galo oo xanuunkaasi la wada ogaado si Ilaahay muxuu ahaa ummadda muslimka ah yacni isugu gargaaraan in la isugu sheego dhammaan. in badan waan aragnay madaxa xanuun ka qabanayo iyo waa muxuu ahaa biray ku boodaa, birahaas marka qaar way la baxayaan oo birtiya la tagaysa. lugtii hore u xanuunsaneed xanuuna sii gaaraya, xanuunkii dhimirku sii gaaraa, maskaxdii sii gaaraa. marka inta muslimna ah oo ina maqlaysa iyo inta kaleba hay'ada iyo waxay yihiinba waxaan ka codsanaynaa in ardaydaasi iskuulka Al-Cimra ka tirsan ahna ardayda iskuulka Al-Cimra dhiganaysay bilowgeedii forman ilaa galaaska 1 ilaa ay maanta ay taagan tahay forman, xanuunkiina mar ka sii dambeeya oo sii kordhayo in muxuu ahaa si wada jir ah ummadda islaamka ah
ay wax kaga qabtaan oo yacni dadaal ay la garab galaan ilaahay iyadoo la kaashana insha allahu tacaala. waxa waaye 14 sano naafo tahay iskuul ay dhigataa iskuulkiina way aad u weyday muddo 2 maalmood gurigay joogtaa wayna kici weyda wayna xanuunsan tahay yaa qof iska naafay waa naafana waa taqaaniin dalkan waxa la yiri wax loogama qaban karo dabadda ma ogiya istaalo badan la soo marnay dhowr istaama saarnay marka ummadda islaamka u bandhigaynaa wixii ilaahay wax siiyey oo sadaqaysanaya inay na garab qabtaan waxna nagala qabtaan qofkii damiir Soomaalinimo iyo mid islaamnimo leh oo awooda $1 iyo wixii ka badan fadlan walaalayaal caawiya qoyskan Soomaaliyeed hana la xiriiro taleefanadooda shaashada ku qoran adeegna ha bakhiilin inaad sheergarayso calan qaran waa caawiyaha bulshada qofkii muslima oo na caawinaya waxaan rabnaa inuu nagala soo xiriiro lambarkayga oo furiisu yahay 538 30 13 lambarkaas inuu nagala soo xiriiro